waxaan u yeeraynaa Cabdulqaadir Khaliif Tiiriye oo macallin ah teacher ah inuu halkaa yimaado kadibna wasiirka ayaa ku soo dhaweynayna بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan macallin soo jeedinayaa guddiga soo qabanqaabiyay hawshan caawa sharafta leh sida dadkii ugu horreeyay u sheegeen waxa sharaf inoo ah imaantiku noo yimid wasiirka ku-xigeenka wasiirka koowaad Cabdiwaahid Cilmi Cumar isla markaana wasiirka tabarta waxa kale oo aan u soo jeedinayaa mahadnaq xildhibaanada kale iyaguna ka soo qayb galay iyo gabdhaha halkan jooga waqtigo yar awgeed ayaan jeclahay inaan soo koobo wax yar oo aan isleeyahay maaragtay ku darso munaasabadan caawa dad badan ayaa waxaad moodaa dowladda inay farta ku fiiqeen ay leeyihiin maaragtay 2 kiiloomitir bay ka talisaa iyo meel ma joogto iyo waxaa wanaagsan horta cadowga lala dagaalamayo kafaa'adiisa iyo intensity-ga uu leeyahay in la fahmo si aad la socotaan Pakistan dagaal ayaa ka socda maanta oo ciidan gaaraya 30,000 oo mechanized ah iyo waxa dagaalamaya niman ay isku baahiyihiin nimanka Soomaaliya ka dagaalamaya marka horta cadowga la dagaalamaya waa cadow sharis ah waa cadow very dangerous ah waa cadow dawlado dhisan qalab military ee nuclear ay u taaglaayeen marka dawladda uu madax ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo golaha la dhisay wax yaani shaqadaas shaqo saaran maayo waxa waa arrin aad iyo aad u cusub marka rationalku wuxuu yahay in dawladda la taageero laguna taageero si dadka ay u sheegeen maaragtay jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed diinta aanu aaminsanahay oo rag odayaal ay ka hadleen oo iyadana threat runtii khataraad weyn saaran tahay waad ogsoontiin waxyaalaha Soomaaliya qariibka ah ayaa soo galay 3 sano u dambeysay oo ay kamid tahay ismiidaan waa la arkay nin Soomaali qabiil ku dila nin Soomaali oo maaragtay xukun raadiye laakiin nama soo marin nin inta ismiidaamiya 100 qof iyo 100 qof meel ku dila haddaan rekoorka ku noqdo October 29 2008 Hargeysa iyo Boosaaso waxaa ka dhacay falal ismiidaamin oo ay ku dhinteen 40 qof Beledweyne June 18 2009 konton iyo 7 qof ayaa ku dhintay oo ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen wasiir iyo safiira iyo dad shacab waxaa u dambeysay June 17 September 17 bishii la soo dhaafay oo xerada ciidamada Amisom lagu dilay ku dhawaad 22 qof 40 qofna ay ku dhaawacmeen marka waad ogsoontiin dad falalka noocaas oo kale ah falal Soomaaliyeed ka iman jiray ma ahayn wax Soomaaliya garanaysan ma ahayn sidaad la socotaan waxa Soomaaliya jooga ama lagu tilmaamay oo mid kamid ah lagu dilay maalin dhaweed ninkii loo oran jiray Ali Salah Nabhan oo Bravo lagu toogtay isaga iyo nimankii khiyaarta la socday waxa ilaahay hadda la raadinayaa oo Soomaaliya jooga nin la yiraahdo Fazuul Abdullah Muhammad oo isaguna ka tirsan ururada caalamiga argagixisada ka tirsan oo dawlado waaweyn oo sida Mareykanka ay baadi gooyaan marka mushkiladda Soomaaliya taala magnitude-kaas ay leedahay wayna adag tahay sida hadda wasiirka lagu wariyay khiyaarta kale ay sheegeen Soomaaliya ceel bay ku jirtaa ceelka laga soo saaro wuxuu u baahan tahay dadnimo u baahan tahay waxaan marka wasiirka farayaa ama aan dadku la wadaagayaa waxa way tiiraayada uu qabo wasiirka dawladuna ay qabto anagoo shacban inaan la wadaagno arrintaas iyada ah oo la tiiraayano waxaan awoodno iyo wixii tabarteena aan dawladdu ku taageerno sababtu waxa weeye alternative kale ma jiro wuxuusan u jirin ragga hadda mucaaradka sheeganaya oo ay kamid yihiin Godane iyo Shoongale iyo Mukhtaar Roobo Cali Dheere Xasan Yacquub Muuse Caraare Macallin Xaashi Cabdiraxmaan Macu Xasan Daahir barnaamijkay u hayaan Soomaaliya muxuu yahay what exactly policy u hayaan Soomaaliya ku badbaadinayaan waxa ma hayaan waxaan ogsoonahay dadka qaarkiis in remote control buura fasoo bixiyaan wax kala aqbaleen walaalayaal waxa weeye waa laga hadlay qabyaalad waa laga hadlay waxa soo dhan waa it's time in dadka Soomaaliyeed ay ka soo baxaan qobraha ku jiraan reer hebel iyo goboleysi iyo intaan hay waxa ma soconayso waxaan waajahnaa ummad aad u dhib badan cadow aad u dhib badan in la midoobo midnimada waa laga hadlay oo la isku yimaado oo Soomaaliya laga qabto dadka iyagu hadda kula jira falka noocaas oo kala waxaan falayaa wasiirka u sheegaya oo iga fartiina marka ugu horeysa dawladdu tabar iyo waxa ay isleen waa laga hadlay waa la sheegay laakiin waxa jira dagaalku waa wajiye badan mid waa qori mid waa media mid waa diinta marka nimankan al-shabaab bidaad la yiraahdo waxaan moodaa propagandada xagga diinta iyo xagga maaragtay inay idinka horeeyaan
waxaa loo baahan niman culamaa inaad keentaan inaad mikrafoon xataa Indian Ocean ka soo deysaan oo wixii karaankiina aad culimada dhayada wax sheegtaan waxaa kaloo wasiirka aan farayaa iyadoo dhaqaaluhu yar yahay in mu'asasaadka ama institutionada waxbarashada aad ihtimaam siisaan waad ogtiin waddanka wax ka socda dhaqaaq iskuulo jaamacada ayaa la furfuraya waxbaa socda arrintaasina waa arrin aad iyo aad muhiim ah waxa weeye sababtu waxa mugdi looga bixi karaa waxa weeye in dadka wax la baro wiilka yar isbidaaminaya waxa weeye waa in la geeyaa isku waa inuu wax bartaa maalin nin odaya oo ka tirsan dadka wafdigan yimid Soomaaliya ka yimid la socday shariifka wuxuu ii sheegay facts isagu kuleyba uu soo arkay wuxuu yiri lama arag nin ka baxay high school oo Soomaaliya yani inta la hayo hadii la kale way yartahay oo isbaari u taal laakiin wallahi nin saddex jus dhameeyo isbaari dhigto wala soo arkay laan waxba ka garanay waxba quraanka waa lagu baray waa xifdisay gelinka waxba ka garanaysid marka waa in lagu noqdo curriculumka waa in lagu noqdo qaabka wax loo baray ciyaalka waa in meesha laga soo bartiilay marka waa maasay wasiirku dadka jaariyada halka jooga ee Soomaaliyeed ee anigu aan kamid ahay nimba caawa ka dhawaajiyay youth-ka ayaa saana kana magaciisiya anigu macallin iskuul baan haysan isbaa dhiga Allah macallin oo kala caawa halkan ifna macallin Ciise iyo macallin Maxamuud waqtigeeda insha Allah taala marka anaga dawladda waan taageersanahay wax hadaan loo yeertaan xataa waa idin imaanayna insha Allah taala